magacaygu Xamse Diristeeriyo oo ku nool magaalada Hargeysa kuna soo barbaaray waxbarashadiisina ilaa dugsi sare ku soo qaatay magaalada Hargeysa waxaan ahay xirfadle ku shaqeeya xirfadda dawaarka muddo dheerna ka shaqeynayay horta xirfaddan waxaan bilaabay muddo dheer waxaan bilaabay ilaa 2003 baan bilaabay laakiin waxaan si rasmi ah ugu go'ay oo shaqadayda ay noqotay 2015 xirfaddan waxaan ka bartay hooyaday oo dawaar lahaan jirtay muddadii hore muddo dheer ku shaqeyn jirtay dadna hooyadii uma ka hoos bartay waxbarashadeena waan hoos waday wax badanna waan maartay ka caawin jiray waalidkay inaan maartay ciidaho kale aan dharka la tolo oo ka caawiyo maartay dadna shaqada si ma ku weynay caqabado badan baa kabo imika magaalada kale sidii hore ma aha berigii aan soo baranay dawaarka ma aha imika waa la isbaraayo dadku waa la isbaraayo laakiin berigii hore la soo bari jirin waxyaabo kale oo meel kasta oo maray imika Hargeysa kale ilaa 5-6 goobood baan u tagayo farsamada gacantooda oo lagu oran jiray iyo dumarka lagu baraayo garasa oo meel ragaba ma jirin higsiga horta uu weyn yahay aad buu weyn yahay oo way maartay magaalada Hargeysa oo kale garta dharka waa la keenaa oo warshado dharka soo saara iyo way ma jiraan ama waa mariya laba jira ama yaro kooban oo dhar iyo soo saara sanadkii laakiin waxaan doonayaa insha Allah inaan wadankayga Soomaaliland aan warshado dharka soo saara soono ku cusub duntina soo saaraya toleena insha Allah inaan maartay keeno ku daro maartay horumarka ku ka maartay gaadho xirfadu way farbadeen xirfadda dawaarku ma xirfadu way farbadeen maarta furniture-ka tabira laabka maartay dawaarka tan gacanta ku hayo kale marka qofku horta inuu iska fadhiisto dhalinyarada ma hay waa inuu horta xirfad raasado weeyaan xirfadu aad u muhiim tahay oo marka qaar waxa la yiraahdaa qofku maartay shahaayis lagu qiimeeyay wuxuu yaqaan iyo maarta fartimiisa lagu qiimeeyaa in badan marka qofka maartay dhalinyarada waxaan ku talinayaa inuu xirfadaha in xirfad oo maartay ku fiican yahay oo ahmiyada saaro taayadana ha noqotay waana soo dhaweeyay qofkii u diyaarin maartay xirfadan aanu ka caawino barno